وهذا يقول ururkooda ka hadlo ilaa 72 baan dacwada bilownay 86 baan hawlahan sameeyna tawa masaa'il kale oo niman xisaabo kale wato way hadda koor waan ku sheegay Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad Abdul Wahhab saaxiib Fath al-Majid oo geeriyooday 150 sano ka hor ayaa wuxuu kitaabkan ad-durr saniya ku leeyahay wadamaha caalamka islaamka maanta ka jira kulligood lama oran karo waa daar kufr maxaa jira ad-dacwa tawxiidiyya oo awogay uu la yimid oo bilaabay caalam meel badan bay gaadhay wadamaha ay gaadhay dacwa tawxiidiyya maanta ay ka taagantahay waxa kamid ah buu sheekhu yiri Afghanistan iyo Soomaaliya kitaabka ad-durr saniya mujalladka 956 laga akhriyo waa goorma 150 sano ka hor Sheikh Ali Majerten geeridiisi waxa laga joogaa 145 sano wax ka badan markuu la taagnaa waxa ariga loo qaro muxuu qubuuraha waa xaraan wama uhilla li ghayri allah ma ukulu wama uhilla li ghayri allah ari qubuureedka markuu taag uu lahaa gab yahay masaafaadkiisi goormay ahayd intan taaba lagaan Sheikh Nuuddin Calcalow hadda dhintay muxuu ahaa waa dhintay kitaabkiisi layida kitaabkiisa loo oran jiray Hidayatul Mustafiid fi Ilm at-Tawhid wuxuu ku sheegay 420 aayadood oo shirki ka digaysa iyo 120 xadiis oo shirki ka digaysa ala tariiqati as-su'aali ala tariiq as-su'aal wal jawaab waxa la daabacay kitaabkaas 5 shilin oo Soomaaliya qiimihiisu ah sicirka lagu iibsanaya xamar oo mashhuur ku ahaa culumadii Azhar iyo Masarna ay taqdiimiyeen Sheikh al-Azhar Sheikh mufti Misra ba taqdiimiyay waxa la daabacay 1960 qiimaha lagu iibsado muxuu ahaa 5 shilin oo Soomaaliya توحيد كان واهر Soomaaliya ka bilowday wadaada muxuu hadda ayagu siyaasadda ku socdo reer macalin ah warkooda in lagu lugaynin dadka fariinta waan u gaarsiinay wixii hadda ka dambeeyo waxa weey ama ka horba ninkii shirki laga kari waayo waa la mid raacinaya inuu asagu toobad keeno warkiisa cadaystaba mooyeen wax noogu haray ma jiraan fa inna ma alayka al-balaagh wa 'ayn al-bayan waa gaadhay hawshaasi banaankay taala sharcigu xujada waxay ku qumaysaa buluuqa kaliya in ruuxu shubaadka ay ka dhamaadaan shardi ma aha nabi wuxuu yiri walladii nafsu muhammadin biyadi hadithka abu hurayra fi sahih muslim la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummati yahudiyyin wala nasraniyyin thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar la yasma'u bi sama'an bala shardiya oo shubaadka ka dhamaadaan oo lagu kala baxo waxaan hadda ku fidnoono weeye 10 sano ka hor baan waan idin muxuu ahaa takfiir ma radina markaasaan ayagana ku tumanay masaa'il badan oo kala indhaha kaga istaagnay waxyaabahaas waa hore lagu soo jabay wax jira ma buluuq baa la shardiya in ruuxan xujadu gaadho baa shardi ah xujada gaadhaysa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wuxuu yiri imma in lafdiga iyo macnaha uu gaar ruuxi ya imma in xukumkii macnuhu uu gaaro Soomaali badan waxa laga yaabaa tafsiirka ma yaqaanaan لكن القرآن كوحو الشيغي أف صوماليان بيكو يقانان معنيه صوت دم بي هيان نينك الصومالي ما أنت هدي اللي دا وحا الدين تكتقان أما علوم كسو قادي ييري أو اسكشك أنك قرين وكا قريناي تون مجلد بقر هيا علوموي صومالي عالم العربي والإسلامي ضدك أقوى قهرون ويا مركا لقاها الله يفكر كوديا مسكحاني وحي فانزينيين أرد عالم الإسلام انت تدقيسي إذا عوض واحد علماء لو ويدين هي علماء الشاشات كصوف فريستي قنوات كفريستي عربيت سؤالها لو ويدين طلبوده يا أرضه لو ويدين دقيسو وأرن عاشق قرطه يا صومالي وهو رأي كسفر إبا لا تاقين هاي الشخص معن كي لا نينك الصومالي يقولون اسكح شذ والله جيابا أما أفكان عجمي لب أوكيانو أما عربي وسنة قلنا وادعي كرتا لكن وحاول هذان السيدي محو هاي هندية يا باكستان يا بنغلاديش waxaynu naqaanaa af Soomaali ku qoran lahayn oo loo baxsan la wadaadii hindiye joogay Bangladesh iyo muxuu ahaa Pakistan dhulka luqada urdu wax ku qoran arab ma yaqaanaan urdu bay ku qorahayaan niman urduga iyo arab isla yaqaanaa heelahaya way tarjumahayaan arabi u badaktubo weyn bay noqdeen ninka hada caanka abu al-a'la al-mawdudi ee la yaqaanay mufakkirka faqiih ee umada ilaahay ku anfacay badan oo kamida ma kana yaktub al-arabiyya wuxuu ku qori jiray urdu wax ku qori jiray kadibna waxa loo bedeli jiray carabi kutub aragtayna fara badan ee ururaha iyo xarkiyiinta aad u isticmaalaan ee musiibada ay culus diin badan xambaarsan waxa lagu qoray asalkiisa hore af Soomaali oo kala lagu qoray kadibna
wadaada afka yaqaanay baa bedelay gabagabadu waxa weeye fariinta sheekhu uu sheegayo ummadda waa horay gaadhay ayadoo sidaa tahay xaaladaha qaarkood iyo dad khaasa iyo qadiya mucayan oo qaadi iyo xaakim loo keenay labtirkeedu in la lafa bixiyo oo si fiican la iska hubsa iskaga baahan tahay laakiin xujadu fa ilaahi alxujatu albaaligha ummadan xujadu waa gaadhay diinta ilaahay waa ka warqabaan waa lagu karleeyahay qaata wahaabiyaatihiin diintii baad ku ciyaaraysaan akhwaan baad tihiin talabi baad ka timaadeen argixisaa tihiin bay ka dhammaan la'yihiin intaaba nabiga waa lagu lahaa saaxir baa tahay kaahin baa tahay beenaalaa tahay asaatiirul awwaliin baa tahay bal kufaaru quraysh iyo carabta kale iyo gaalo kaleba oo ka horeysayba ambiyada markay la dagaal marar badan waxay dhihi jireen ilaahay